السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتي وادي سلامية سو دوادا إن شاء الله وادي سلامي سلام كشكي لابتك سو قضي عمل روحي لفها سيدي أرجع عشرين بريق روحي كشكي لابت عبدنا واد روحي لفها لما وادي جعل وادي سلامي وحن ربا أنا وحيد كذا افتيميو وما عرفتي نفتي ننفع قبله يوينك وليبا gabdhaha yaryarna kole hadda ayagaaba yaro dheegoodii saaran yahay inay maaragtay isqurxiyaan hadda gabadha yarta ayadaaba ku howlan laakiin waxaaba caado waa Soomaalida inta badan gabadha yarta markay tahay inay iswadwado iswaxayso markay guursato halda markay dhasho waa isna ceebo halda markay dhasho way isna caysaa marka looma baahna waxaas waxa loo baahan yahay sidaadii horeba inaad ka sii qurux badnaato oo lagu guursaday oo gabadha ahayd waxaan leeyahay taasoo kale waxa weeye waa sirta nolosha qofku inay sir nololeed leedahay la rabaa ama sirta maxaa nolosha oo sirta jirkaaga inaad sir u haysid oo wax aad ku qurxiso iyo wax aad ku nadiifiso iyo wax aad maaragtay isticmaasho inay adiga gaar ku yihiin la rabaa waxaan marsadaa waxaan saana yeelaa ha ku dhiin odagaaga waa bili aadan marka hadhowto waxaan isku waxaysaaye quruxa u dhalata maliyadu waa ku dhihi karaa laakiin waxa la yiraahdaa walba dumarku waa dhiil la aleelay dhiisha waxa weeyaan dadkii qofkii yaqaan hadii meel la iska suro oo la iska dhaafo waxay noqonaysaa wax eberho cadaado boor ku rogan yahay laakiin hadii dhiisha inta la qurxiyo aleel wax la yiraahdo jiro cadcad oo lagu xirxiro iyo saliid la mariyo dufan la mariyo dhiisha si kasoo farxay qurux kaliya noqonay islaamuna waa sidaas oo kale la yiri hadii is ilowdo oo gacanta aysan isku haynin sidaas oo kale noqonaysaa adigana gabaray noloshaada iyo quruxdaadu waa inaad faraxsan tahay waa inuu qoyskaagu farxad haysto oo adiga isku faraxsan tihiin waana in aad adigu noloshaada iyo maaragtay jirkaaga iyo wajigaaga iyo ay leedahay waxaad ku qurxiso oo gaar waa inaad taqaanid haysato kulligood dhammaantood waxaad keeni kartaa jikadaada wixii macluumaad anigu soo faa'iidina waa idin la socodsiinaya laakiin gabar walba ka fakir lifekaaga sidaad u qurxin lahayd oo qoyskaaga u qurxin lahayd oo faraxsanaan lahayd hana noqonin qof xirxiran oo kaligiis meel fariista hada iskuulkii meelahaas tagtay bulshada dhexdeeda iyo meel la isugu yimaado qof xirxiran oo kaligiis meel fariista oo iska aamusan ha noqon iska sheeko macquul oo waxba qofna u dhibaynin iskana qoso iska faraxsan dadkana soo dhex fariisto mar walbaba qofku markuu dadka dhex fariisto oo sheekeeyo oo farxo oo qalbigaaga si fiicnaan ka kaliya meel fariistid waxaaba ka fakiray gurigii iyo ilmihii iyo say ahaayeen iyo laakiin markaad sheekaysto bulshada soo dhex gasho xogaa ilaah fikirkaas waa ka yaraanaya kaliya dad noqoto waxa u baahan tahay inaad xogaa fikirtid qofku fikir la'aan ma aha laakiin yani wixii dib idin geysanayo kana idin sheegaya marka aniga ma ahan waxyaalaha hadda aan idin sheegayna aniga barashadu 2 sano ku howlanaa oo maaragtay aan ku dhex jiray oo aan soo ogaaday hadday noqoto waxyaalaha oo naftaada u roon oo cuntooyinka jirka u wanaagsan iyo lifeka waxa u fiican qofka qalbigiisa waxa u fiican waxaas oo 2 sano soo ogaanay soo akhristay xabaar marka insha Allah waan kaga sheekeyn doonaa waxyaalo badan aan idin soo wadaa laakiin hadda waxaan idin sii sheegayaa hor u dhacaan idin sii sheegay gabar walba waa inaad sir nololeed yeelataa hadaa sir nololeed lahayn waxaagu ay maaragtay ilmaan dhalay oo lugta igu dhaganaanayaan oo marada igu dhaganaanayaan oo farqi ay haystaan ay noqoto birka maalinkan waa nin 20 jir asaga cidina farqa kuma dhigin shaarkiisa ugu jajafay waliba gabdhaha Soomaaliya jooga aan aad ula sii hadlaa yani ayagu arintaas ilmooda isaga mashquulsan iska haystaan saas uma baraarugsana kiimikadana inaad isticmaashaan iska badisaan ma aha laakiin kulay waa inaad sir nololeed yeelataa oo maalinta ku soo guursaday mar walba aad ka sii qurux badnaataa xataa markaad uurka leedahay dhabankaagu iyo dhiman ishaadu iyo dhiman iyo go'in mar walba waxa ahaataa qof
still markastaba islaalaadin inta tabartaada haddaa aad awoodi weysid hadda waaba awoodi weysid laakiin maba awoodi weysid insha allah haddaa isku kalsoon tahay mar walbana isku kalsoonow inaan gabar kaa horreyn iskula kalsoonow haddii xataa naag lagu guursado inaan naaw kaa horreyn kalsooni naftaada waa inay haysataa waa inaad isku qabtaa kalsooni waa inaad kalsooni haysataa markastaba haddaan xataa naag lagula qabin kalsoonidaada waa inay dhisan tahay kalsooni haysa mar walbaba kalsooni waa shay muhiima waana shay u wanaagsan naftaada iyo qalbigaaga iyo aayahaaga dambe kalsoonidaada kor u qaad markastaba gabaray kalsooni haddaad haysato haddaadan xataa markii hore aadan qurux u dhalan wallaahi haddaa aaminto inaan qofku kaa qurux badnayn oo aad aaminto midaas aad isleedahay way kaa caddaa ama way kaa qurxunto adaa iska dabageey kara iska dabageey lama kala qurxuno meeshaani qof walbaba quruxda ilaahay u dooru ku qurux badan yahay kalsoonidaada kor u qaad weeye wax walbaba iska dabagee midaas waa iska dabageyn kartaa adoon wax dhibaataa iyo wax problem iyo wax shitaa ku gelin wax sida aad tahay oo ilaahay kuu abuuray waa sida ilaahay kuugu quruxda badneed weeye kalsoonidaada kor u qaad kalsoonida ku qab quruxdaada naftaada kalsooni ku qab wax walbaba ku kalsoona waxaad samaynaysana kalsooni ku qab waxaad ku kalsoon tahay wixii aad samaysaa inay yihiin wax wanaagsan wax xun hadda marka horeba awlaadan qofku ku fakarayn uu isleeyahay waa xun yihiin awlan sameynay laakiin waxaad sameeydo oo kaa dhac kalsooni ku qab haddii qalad kaa dhacana bili aadanaad tahay qaladkaas wixii uu kaaga dhacay uu ahaa ka raali geli haddii ay dad ahaayeen ama maaragtay qof wax kaa dhex ama qof kaloo muslima ama qof kasta yihiinba ka raali geli laakiin naftaada aad kalsooni ku qab anigu waa noloshaada waxaan ka hadlaayo dad kale inaad u geysatid maaha laakiin noloshaada gurigaaga naftaada ninkaaga waxaaga dhanba kalsooni ku qab inaan gabar kaa horreyn kalsooni ku qab si alla si aad u eg tahay middaa isleeda middaan xoogaa dhamay kaa qaxunto waa iska dabagey kartaa iska dabagey maxay ahaydeen kalsooni ku qab sidaas aad tahayba oo aad tahayba qof maaragtay ma jiro fool xun laakiin waxaa duruufta iyo qofku siduu dadaal iyaaga kaa dhigto maba jiraanba qof fool xun maba jira ilaahay baaba qof walba qurxiyey sida ilaahay kuu sameeyana ku qurux badan tahay haysdhihi weligaa gabaraa kaa qurxun haysdhihi weligaa gabaraa kaa fiican haysdhihi weligaa waa lagaa wax qabad fiican yahay weligaa allah taasoo kale ay kugu dhaceen insha allah saas waa ila dardaarma aniga meeshaan gabdhahaygii iyo kuwaan habardhuhay kuwaan eedowhay kuwaan kasta iyo gabar kastoo Soomaaliyeed gabadhii fiirsata waxaan rabaa inaad meeshaas wax kala soo dhex baxdo oo aad meeshaas ka ambaqaadid oo aad kalsoonida kor u qaadid oo ciduna kaa horreynin oo meeshaas ba tii awal xoogaa yar islahayd saanaata kalsoonida kor u qaad habar ha fadhin meesha insha allah saasaan idinla dardaarma waana kaasaa barnaamijyada waxay noqon doonaan intii bishaan iyo bisha dambe isdaba joogay noqon doonaan insha allah jaaniskan haystaan ka faa'iidaysana iskuulka intuu ii xiran yahay ilmuhu guriga ii joogaan oo aanan stress waxba qabin ayaan dadaal macnaha stressku wuxuu weeye waa xoogaa degdeg yacni oo meeshaasaad cunka doonaysaa meeshaasaad iskuulka aad u aadaysaa adeega halkaas ka doonay saas weeye stressku ma aha yacni wax dhiba ha u arkinina marka saas aan kula dardaarmaa waa idinkaasa insha allah haye soo noqod wanaagsan barnaamijyadeena feedback sidoo idiin anfaco waxaan rabaa inaan hoos igu soo qortiin si aan hore ugu sii socdo oo u soo saaro waxyaalaha idin anfacaya insha allah sidaasaan idinka rajaynayaa qofkii aniga wixii aan maaragtay aad iga barnaamijkayga aad daawateen ama midka waanada ha ahaado ama midka cuntada ha ahaado ama midka quraacda qadada waxyaalo badan qada inkastoon hadda soo gelin laakiin waan soo wadaa inta badan yacni qofkii quraacdaas cunaa oo aan saaka sameeyey oo fideogayga hore ku jirtay cuntadii uu qadada ka dhigan lahaayoo kale ama wuxuu cashada ka dhigan lahaayoo kale kuwaas aan idiin soo baarbaaraa bariis waa karsa taqaaniin baasto waa karsa taqaaniin muufo waa duba taqaaniin soor waa karsa taqaaniin waa idinkaasaa marka laga yaabay xilliyada waqtadan soorta iyo waxsaas inaan idiin soo geli laakiin bariis iyo baasto waaba ka dharagsantihiin saan isleeyahay ilaa maantaan dhalanaan cunaynay haddii laga soo codsadana waan arkayaa insha allah laakiin adinka feedbacka iyo wixii uu idinka anfacay qofkii inta taladayda ku dhaqaaqa iscajabiyo oo ka arka wax wanaaga ha ii soo sheego insha allah sidaas khayr ilaa qofka haddii wixii aniga aan maaragtay idiin sheegay haddaad ku faa'iidaan oo kaleeto waxaan rabaa inaad ii soo sheegtaan gabdhaha ilmaha leh
oo hooyooyinka ayaan si qaas weliba barnaamijkan ugula hadlaa oo xaasaska ilaa aad hal cunug lahaato waa ku quseeyaa hadda hal lagu arooso waa ku quseeyaa yacni ila future-kaagan ka hadlay aniga marka sidaas waa ku quseeyaa qof walba oo gabar kasta ama hooyo kasta wuu quseeyaa marka haddaad dhegaysataan oo adinka aad sidaad kalsooni isku daydaan insha allah bal wixii aad ka faa'iidaan ii soo sheega feedback oo idinka sugaa insha allah like iyo share garaysantana idinkaa idinka sugaa hadde hore ii sii wada insha allah la-aantiin waxba ma noqon karo aniga idinkaan rabaa inaad horumari gaarsiiyaan insha allah iyo waxa aan higsanayo aniga wax kaloo hadda danoon kaleeha male laakiin waxaan leeyahay maadaama aad hadda jaanis haysid waxna aad soo faa'iida 2 sano aad wax soo dhegdhegaynaysay wad wax soo akhrisanaysay marka waa inaad markii waxa la gaaray xilligii aan idin soo gudbin lahaa wixii aan soo faa'iiday ayaa la gaaray marka khayr aan idin rajaynaa waa kaasa la socda waa khayr aan idin dhaafay